bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa yuusuf cali geedi waxaan ka tirsanahay bahda nabadda iyo cadaaladda sidaa nooga barateenba waxaan idiin soo gudbinaa barnaamijyo yaryar oo isugu jiro qoraallo iyo fiidiyoyaal waxaana mar kasta uga hadalnaa nabadda iyo cadaaladda dadka soomaalida iyo guud ahaanba waxa u wanaagsan dadka soomaalida sidaa og tihiinba waxa wanaagsan sheegitaankooda waa la badiyaa sidaas ayaa waxa wanaagsan ku bilaabmaan kuna samaysmaan kuna ahaadaan haddaba maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay daraasaad aan samaynay kuna ogaanay faa'iidada iyo qiimaha ee u leedahay bulshada soomaaliyeed xilligan sheegidda iyo samaynta waxa wanaagsan inta aanan guda gelin daraasaadkeenna waxaan waxyar ka sheegaynaa sababta iyo baahida keentay in aan samayno daraasaadka sidaa og tihiinba oo ka dharagsan tihiin muddo ku dhow 30 sano ayaa dalkeennii soomaaliya waxaa ka jiro dagaallo sokeeye iyo dhibaatooyin waaweyn dhibaatooyinkaasna waxay si qoto dheer u dhex galeen noloshii kala duwaneed ee ay lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxayna dhib u geysteen qaybaheedii kala duwanaa bulshada soomaaliyeed waxay isaga xadgudbeen xuquuqdii bini'aadanimo ay lahaayeen waxay u dagaalameen eel waxay u dagaalameen magaalo waxaa kala go'ay magaalooyinkii waxaa dumay oo hami yeelo waayey dowladnimo soomaaliyeed waxaa baaba'ay wax kastoo wanaagsan oo nolosha wanaagsan ee dadka soomaalida ee lahaayeen ay u baahnaayeen waxaa baaba'ay taariikhdii wanaagsaneed ee lahayd bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ahna waaba suuleenba dhibaatooyin ka dhaca dalka soomaaliya laguma soo koobi karo qoraal iyo tv laga hadlo iyo fiidiyoyaal la duubo iyo barnaamijyo meelo lagu qabto waa wax tiro badan oo dhibaata oo kobcay markii si dambayso dhibna u geysanayay noloshii bulshada soomaaliyeed iyo mustaqbalkeedaba ilaahay waxaan ka baryaynaa intii hore in ilaahay noogu ekeeyo noona sahlo sidii aan uga bixi lahayn marka sababta keentay inay dhibaatadaas dhacdana waxay ahayd dowladdii milatariga ahayd ee dalka soomaaliya ka talinaysay iyo jabhadihii isbedel doonka ahaa ayaa labadaba waxay ku guuldaraysteen inay isla fahmaan hagidda iyo jihaynta mustaqbalka dalka soomaaliya is-afgarawaagii ka dhex dhashay ayaa wuxuu isku beddelay gacan ka hadal kadibna waxay adeegsadeen bulshadii soomaaliyeed waxayna noqdeen in ay labada mid ka mida uu guulaysan waayo hadafkii iyo ujeeddadii ay lahaayeen labadabana uu meeshii ku baaba'ay bulshadiina ay meeshii ka sii wadatay foodadii iyo dhibaatadii la dhex gelshay kadibna ay ayadii isku soo jeesatay bulshada soomaaliyeed oo ay si xun iskula dhaqantay oo si xun iskula xadgudubtay halkaas ayaa ah tilmaanta ugu weyn ee keentay burburka dalka soomaaliya ku dhacay haddaba maadaama aan intaas ognahay maxaa nala gudboon oo hadda aan u samayn karnaa dalkeennii iyo bulshadeennii soomaaliyeed marka hadda ayaan daraasaadkayga gudagalaya waxaan samaynaa marka daraasaad oo aan raadinay wax u qalmo bulshadii soomaaliyeed oo ay uga bixi karaan dhibaatadii ku dhacday muddadaas 30 sano ahayd iyo qaabka ugu fudud oo shaki la'aanta ah oo ay uga bixi karaan iyo weliba qaabka ugu raqiisan oo aan ku xirnayn shuruud aan la raadin karin ama la heli karin tusaale ahaan shuruudaha waxaa ka mid a haddii la yidhaahdo shuruud intaasoo lacaga inaan helno ayaan u baahannahay si aan dhibaatadan ugu baxno haddii la yidhaahdo intaasoo ciidamaah ayaan u baahannahay haddii la helin maka bixi karno haddii la yidhaahdoo kale intaasoo taya oo cilmi ah ayaan u baahannahay haddii aan la helin kama bixi karno shuruudaha waa sidaasoo kale waxaa ka mid ah waxyaabahaas ayaa ka mid ah shuruudaha marka waxaan raadinay wax aan shuruud weyn lahayn oo bulshadiina dhib iyo kalif u keenaynin oo nolosheediina ay ku soo cesho karto wanaagsaneed ee lahayd ugana bixi karto tii xumeed ee u keentay dhibaatada kadib waxaan ogaanay in bulshada soomaaliyeed markii horeba ay ahayd bulshadii caawisay oo garabka siisay dhibaatadii ka dhacda dalka soomaaliya hadday ahaayeen kuwii dowladda hadday ahaayeen jabhadihii hadday ahaayeen kuwii kadib ka dambeeyey ay faxsharka iyo foodada isla dhex galay ee dagaalada ahligaa ku dagaalamay dalka gudihiisa kulli waxay ahaayeen bulshadii soomaaliyeed oo ficilo xunxun faraha la gashay samayntooda iyo
ku dhaqankooda iskuna xasdaayey noloshii caadiga ahaa ee bini'aadanka u lahaa maadaama ay bulshadii ahayd meeshii ugu weyneed ee ay samaysay dhibaatada maantay dalka soomaaliya haysato waxay haddana awoodaan in ay joojiyaan wixii ay faraha kula jireen kuna beddelaan wanaag wixii ay faraha kula jireen oo xumaanta ahaa oo ay sameeyeen oo dalkoodii iyo naftoodaba ay kula kaceen inay joojiyaan sidaa og tihiinba qof kastana ay ka dharagsan tahay dadkii laamiyada gubaayey ee lugaha dhigaayey ee qashanku shubaayey ee derbiyada duminaayey ee hubkii milatariga isticmaalayey ee isku adeegsanayey ee kala gadanayey ee tuugada iyo gaangastarinta ajaanibta soo ijaaranayey ay kala qaybinayeen dalka soomaaliya ee xadaayey kulli waxay ahaayeen dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ahayd ma fahamta meel laga soo abaabulo iyo qolo lacag siinaysana ma jirin qof kasta asaa isxil qaamaye si uu u sameeyo xumaan ujeeddo kale ma lahayn oo aanay inuu xumaanta u sameeyo intaas qof ay ka qarsan tahay oo soomaaliya ma jiro qof laga qarin karana ma jiro marka maadaama ay bulshada soomaaliyeed ay ahayd xubintii ugu weyneed ee khasaarada ku dhacda dalka soomaaliya sababta u ahaa waa inay joojiyaan wixii xumaanaya faraha kula jireen kuna beddelaan wanaag jadadkii ay gubi jireen waa inay fiyooro ku abuuraan guryihii iyo masaajidadii la duminaya waa in dib loo dhisaa isbitaalladii waa in la caawiyaa waa in laga shaqeeyaa dowladnimo wanaagsan xumaantii la sameeyey bilcagsigeed in la sameeyo wanaaga waa intaas oo shay ayaa la samaynayaa waana wax u sahlan bulshadii oo aan ku xirnayn sharuud oo aan ku xirnayn ciidamo u baahnayn oo aan u baahnayn lacag badan oo aan u baahnayn cilmi badan oo aan u baahnayn gacmo ajaanib oo shisheeye shalay markay intaas samaynaysa bulshada soomaaliyeed levelkeeda ugu dhexe levelka dhexe ayuu ahaa meesha ugu xoogga badnaa ee caawiyey dhibka haddaan been sheegaayo iyo haddaan run sheegaayo taariikhda ayaa xusi doonta warkayga qof kastoo soomaaliya oo dalka soomaaliya joogo ama bannaankiisa joogo ee daacada runta wuxuu og yahay inay ahayd bulshada soomaaliyeed meel kastay joogtay dadkii caawiyey dalka soomaaliya inuu dumo ayagay ay ahaayeen dadkii u sacabatumayey qabyaaladda ayagay ahaayeen kuwa u sacabatumayey xisbiyada siyaasiyiintoo beenta ayagay ahaayeen kuwa u sacabatumayey dowladaha shisheeye la soo ijaaranayay ayagay ahaayeen kuwa u sacabatumayey tuugada iyo gaangastarinta laga keensanaya bannaanka ayagay ay ahaayeen kuwa isku diidayay wax wanaagsan inay samaysmaan qof kalamaa timid marka haddee daacad kaa ahayd oo xooggaagiiba aag gelisay adoo aan lacag lagu siinaynin maantana waxaa awooddaa inaad joojiso jooji wixii afraha kula jirta waa sida ugu fudud jooji wixii afraha kula jirtoo samaysa haddii aa ahayd kii sameeyey iyo haddii aadan ahaynba kii sameeyey bilaa wax wanaagsan jooji haddaa ahayd kii sameeyey ceeb maaha qof wax waa ka dhacaan xun laakiin inuu kusii dhex jiro ayaa ceeb ah wax waa dhacaa qalad waa dhacaa waa la dambaabaa waa lagala soo laabtaa ceeb maaha wax oo ceeba maaha waxaa logala yaaba maaha wax weyn aa badbaadaysa naftaadina waa soo celisay wix xumaa oo naftaada ku jirtana ummadda ayaa ugu sheegaysa inay ka joogsato waana kala shaqaynaysaa ceeb maaha haddaadan ahayn kii faraha kula jirana ka shaqeey inaad dalkaagii iyo dadkaagii ay helaan wax wanaagsan jidadka fiyoora lagu abuuraa masaajidada waa la qurxinaa guryihii dowladada la dumiyey waa la dhisaa waxyaabihii la haleeyey waa la qurxinaa dadkii la kala gooyey ehelkaa waa la soo jidaa qabiiladii kala guura isdagaalamay waa isjeclaanayaan waa isdhexgelayaan walaalnimadoodii soo ceshanayaan magaalooyinkooda iskula noolaanayaan ma fahamta intii la kala haleeyey foodada iyo faxshirka iyo xumaanta lagu sameeyey waa la qurxinaa oo wanaaga la sameynaa qof kastaana samaynayso marka wanaagga ficilna waa loo sameynaa waana la sheegaa dhegaysta marka natiijada daraasaadka wanaagga waa la sheegaa waana la sameynaa ma fahamta waxaa kuu bilaabanaya wax wanaagsan
waxaa kuu samaysmaayo wax wanaagsan, waxaa kuu noqonaya wax jiro oo la yaqaano la tilmaamayo wax wanaagsan. aan kugu soo celsho, wanaagga waa la sameynaa, waana la sheegaa. waxa la sugayo bilaabmaayo waa wanaag, waxa samaysmaayo wanaag, waxaa noqonaya wax jiroo la yaqaano waa wanaag. ma fahamta? marka sidaas waa sida ugu fudud ee u qalmo bulshada Soomaaliyeed, shaki la'aanna ay ku heli karto kuna soo cesho karto noloshoodii wanaagsanaa ay lahaayeen, mustaqbalkana ay ugu noolaan karaan dalkooda si wanaagsan oo aayatiin leh. ma fahamta? marka in la joojiyo xumaanta waa meesha ugu muhiimsan. bilcagsi waxaa ogaataa waxaad samaysaa helaysaa. haddaa maanta xumaan samayso waxa aad sugayso xumaan waa baxday, guri cid leedahay aa soo tuuriyeesay, waa soo laabatay, waa lagu raadsanaa ama waa lagu tuuriyanaa meesha lagugu arko. waa baxday meelaa soo qurxisa cid leedahay, guri cid leedaha soo qurxisa, waa lagu soo raadsanaa, saaxiibbaa yeelane iyo wax wanaagsan helay. waxaan loo shaqaysan lama helo. marka bulshada maadaama ay shalay caawiyeen dhibaatadii ugu weyneed, xubintii iyo lafdhabarna ay ka ahaayeen ayaga, burburkii iyo halaagga ka dhaca Soomaaliya, waxay joojinayaan intii shay ee caawisay inay kobcdo dhibaatadaas ayay joojinayaan. waxayna samaynayaan intii in ka badan oo wanaaga oo kal iyo laaba. dadka waa la iska hor imaanaa, face to face ayaa loo kulmaa, waa la sheekaysanaa, waa la wada hadlaa, wax wanaagoo aayatiin lahaa la bilaaba, waa la sheegaa, waa la samaynaa. waxa la sugaayo imaanayo, wallaahi iyo billaahi iyo tallaah, waxa imaanayo oo la sugaayo waxay noqonayaan wax wanaagsanaa samaysmaayo. wax wanaagsanaana waxay noqonayaan wax jiro oo la yaqaano calaamad leh. aan kugu soo celsho, wanaagga waa la sheegaa, waa la samaynaa. waxaa bilaabmaya wanaag, waxaana samaysmaayo wax wanaagsan, waxaana noqonaya wax jiroo la tilmaamayo wax wanaagsan, waxaana ku noolaanaya ku nacfinaya dadka sameeyey. tan kaloo meesha kugu qarsanna waxay tahay rabbigaagina raalli ayuu kaa noqonayaa. kelmad kasta iyo tallaab kastaad qaaddo wanaagsanaad samayso oo aslaax kaa ah, ilaahayna waa kugu abaalmarina. dadkana sharaf a ku dhex yeelan dhexdooda. marka bulshadii waxaa laga rabaa si guud inay u shaqayso oo samayso wanaag si looga baxo dhibaatadii shalay. macno ma leh haddaa ahayd kii sameeyey iyo haddaa ahayn kii sameeyeba. macno waxaa leh in la sameeyo wixii wanaagsanaa, in la sheego wanaaggi, la sameeyo wanaaggi si uu u bilaabmo wixii wanaagsanaa, si ay u samaysmaan wixii wanaagsanaa, si ay u noqdaan waxa wanaagsan waxa jiro la yaqaan. magacaygu waa yuusuf cali geedi, waxaan ka tirsanahay bahda nabadda iyo cadaaladda. wixii ku qaldoon fideogeyga waa qalad aniga dhacay, wixii ku saxsanaadana waa inta adinka igu talagalay.